أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي سبحانه وتعالى ما دام صفاتك أي تلمامها وليهي وإن أبوري وإن ليهي وإن معموله ونعمي وناك استوي نسيي وحق إنه يقول لي يا ربي سبحانه وتعالى إنه ينقنا الدوام الدبا وإنه حقيقينه ujeedada ilaahay inoo abuuray saaxiib wanaagsan dooro waa dantaada saaxiibka xunna iska ilaali oo ka fogow qofka muuminka ahi hadduu taagan yahay hadduu fadhiyo hadduu jiifo hadduu soconayo hadduu arrin adduunye ku jiro hadduu masaajidka fadhiyo hadduu goobtiisa ganacsi dhex fadhiyo waa midaan marnaba ilaahay subxaana watacaala aan ilaabin qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa ikhlaasan magac ku dooni maayo maamuusna kuma rabo manfaca adduunyana hadalkeeda baddaa ilaahay buu wax kaga doonayaa ilaahay wuxuu ku abaalmariyay inuu guri jannada uga dhiso ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat watawaasaw biاlxaqi watawaasaw biالsabr afartaasi arrimood waktigu waa qaali oo anigaa ku dhaartaye ha ku dhammaada weeyaan macnaheedu iimaan camal saalixa sabir aad ku sabirto wanaagga xumaanta aad ka sabirto qadarada ilaahay u xanuujiyana aad u sabirto iyo wanaagga ilaahay subxaana watacaala adiga uu kugu galladaystay inaad dadka kalena u gudbiso bakhayl aanad ku noqon abu hurayra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo beec iyo shiraa inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan wuxuu ku uhi ayuha annaas antum haa huna wamiiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid dadoo halkanaad fadhidaan dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegey masaajidka in lagu qaybsanayo waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo qur-aan lagu baranayo masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan waxay ku soo noqdeen abu hurayra radia allahu canhu waxay dhahan yaa aba hurayra inamaa taquul abu hurayra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه إلهي baa wuxuu yidhi qof walba waxaanu qoorta u sudhnay camalkiisa waxaanan u soo saari doonaa maalinta qiyaamana soo hordhigi doonaa isagoo ah qoraal u akhriyo iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba waxaa la odhan doonaa akhri qoraalladii lagaa sameeyey naftaadaa maanta kuugu filan عدك حسابي صادقو قرنقص أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علمigu waa furaha nolosha waana hagaha bani aadamka cilmiguna wuxuu u kala qiimo badan yahay waxa qofku uu baranaya aqoon u yeelanaya sidoo u kala qiimo badan yahay culumta waxa u sharaf badan cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baraya aad ku baranayso ilaahay magacyadiisa wanaagoodu dhamayska tiran yahay صفاتك ربي سبحانه وتعالى وناكسنا قروحنا بدن إلهي سبحانه وتعالى حقوق ديسا وحو كفري وحو كوديدي قابك إلهي وكادونيو إن أظن ولاته إلهي سبحانه وتعالى ووجيها حقالك وياهي
noloshaadu inay ku hagaagayso. cilmiga aad ku baranayso xuquuqda kaa'inaadka ama makhluuqaadka kuwa nool iyo kuwa kaleba oo kugu xeeran xuquuqda ay kugu leeyihiin cilmiga aad ku baranayso ee ku caddaynaya. cilmiga samaawiga ah culumta qaar dhulka ayay ka yimaadaan, qaarna samada ayay ka yimaadeen. cilmiga samada ka yimi waa waxyiga ilaahay ku soo dejiyey rususha iyo ambiyada uu u dambeeyey lagu khatimay nebigeeni moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa cilmiga ka kooban ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa oo axsanu lkalaam wa asdaqu lkalaam, hadalka u wanaagsan iyo hadal ka u run badan, oo acdalu laxkaam, axkaamta u cadaalada badan ee noloshu ay ku hagaagayso, axwaashuna ay ku toosayso, koobsanaya oo ku baaqayo dadka ugu yeedhaya. cilmiga ka kooban axaadiidii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay uu ka ilaaliyey qadiyadda waxyiga marka laga hadlaayo, khalad iyo gaf oo dhan, sax mooyaane khalad aan lahayn, run mooyaane been aan lahayn, fa huwa asaadiqu almasduuq calayhi salaatu wasalaam. waa kii runta sheegaayey, wax allaaliyo waxa uu sheegay uu ku waramana isagoo dhaba ilaahay subxaana wa tacaala addoommaha uu hor keenayey. cilmiga waxaa u qiimo badan cilmiga laga dhaxlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ambiyada dhaxalka ay ka tagaan sida uu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam, maaha daraahim iyo danaaniir, maaha dhul iyo beero, maaha guryo iyo waxyaabo kale oo la mida. ambiyada waxaa laga dhaxla waa alcilm, inamaa warathuu alcilm. qofka dhaxalka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka qayb galaa waa qof dheef iyo nasiib weyn helay. qofka ka qada dhaxalka nebigana calayhi salaatu wasalaam waa qof wax weyn ka qaday. aynu isweydiino dhammaanteen dhaxalkii qiimaha badnaa uu inooga tegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa kaa dhexdeena yaalla, kitaabkii qur-aanka ahaa, axaadiidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo qoran iyadoo codoo duuban, wataa meel walba maanta laga akhrinayo, masaajidada, macaahidda iyo madaarista, jaamacadaha, tiifiyada iyo idaacadaha iyo goobo kale oo fara badan. dhaxalka ama kuwa ka qaday baynu ka mid nahay mise kuwa ka qayb galay. abu hureyra radia allahu canhu wuxuu soo maray dadkii oo suuqa jooga oo ku mashquulsan howlihii adduunyo, beec iyo shiraa, inay wax iibiyaan iyo wax kala iibsadaan. wuxuu ku uhi ayuha annaas antum haahuna wa miiraahu nabiyikum yuqsamu fi lmasjid. dadoo halkanaad fadhidaan, dhaxalkii nebigiinana waxaa lagu qaybinayaa masaajidka. dad baa masaajidka yimi iyagoo u malaynayey xoolo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka tegey masaajidka in lagu qaybsanayo. waxay arkeen masaajidkii oo qur-aan lagu akhrinayo, qur-aan lagu baranayo, masaajidkii oo xalaqaad cilmi ay ka ogan yihiin oo ay ka socdaan. waxay ku soo noqdeen abu hureyra radia allahu canhu. waxay dhahan yaa abaa hureyra inamaa taquul, abu hureyra waxaad sheegaysay mee masaajidkii kumaanaan arag wax xoolaa lagu qaybinayo. faqaala radia allahu canhu haadaa miiraahu nabiyikum, dhaxalkii nebigiinu waa kaa. cilmigaas weeye dhaxalkii nebigiinu. cilmigaasi cilmi ilaahay subxaana wa tacaala dadkiisa kor uu u qaaday, adduun iyo aakhiraba u ammaanay, magac iyo maamuus, sharaf, qiime iyo qadar iyo darajo sare qofka ilaahay daraaddii u barta wa tacaala uu ku gaadhsiinayo. qaala allahu subxaana wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat. ilaahay wuxuu kor u qaadayaa kuwa iimaanka iyo cilmiga labadaasi la siiyey darajooyin, waa adduunyada waa aakhiro. jannada xataa marka ay galaan dadka kale way ka darajo sarreeyaan. waxaana taasi ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey abaalmarin ilaahay uu ka abaalmariyey cilmiga ay barteen, wakhtigooda ay ku bixiyeen, ee ay ku sabreen, ee ay ku dadaaleen, ilaahay daraaddiina subxaana wa tacaala ay u baranayeen iyagoo ilaahay kaga doonaya. ilaahay baa muujiyey qofka cilmigan sharcigaa barta qiimaha iyo qadarka uu leeyahay ilaahay agtiisa uu ku leeyahay. maaha sharafta dhabta ahi, maaha qiimaha iyo qadarka iyo darajada sare. bani aadamkan masaakiinta ah aqoontoodu ay kooban tahay, waxay hayaan uu iska yar yahay, sidiisabana ammaano uu ku yaho ilaahay subxana wa tacaala uu leeyahay inaad agtooda magac ku yeelato ama maamuus iyo sharaf. magaca iyo maamuuska, darajada iyo sharafta dhabta ahi waa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa in laga amaano oo ilaahay subxana wa tacaala ilaahay agtiisa qof qiimo kule aad ku noqoto. taana waxaad ku gaadhaysaa inaad barato cilmigii ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed
soo dejiyey ilaahay baa shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huwa waalmalaa'ikatu wa ululcilm ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu markhaati ka yahay inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay wuxuu arrintaas saasoo kale markhaati uga dhigay almalaa'ika darajoodu ay sarrayso waxaa kaloo ilaahay uu la sheegay daatadiisa iyo malaa'igta towxiidkana markhaati uga dhigay dadka ahlulcilmiga ah waa qiimahooda ilaahay uu muujiyey magiciisii ayuu raaciyey wax markhaati laga noqdo waxa u qiimo badan inay markhaati ka yihiin buu ilaahay tilmaamay macnaheedu waa dadkay u khayr badan yihiin waana cuduul waa dad wax lagu aamini karo oo warkooda la maqli karo oo la rumaysan karo oo warkooda wax lagu dhisi karo lagu salayn karo maadaama ilaahay uu sheegay wixii u weynaa oo towxiidkiisa inay iyagu markhaatiyaalay ka yihiin qofka cilmigan barashadiisa u soo jeesta cilmigaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey qalbigiisa u jeediya isagoo ilaahay ugu cibaadaysanayo ilaahay subxaana wa tacaala wax kaga doonaya waayo cilmigu mar waa darajo mid lagu gaadhayo adduunya aakhiraba waa mid ilaahay addoonka ku jeclaanayo waa cibaadatun xasana waa cibaado aad iyo aad u wanaagsan waa mid qofka noloshiisa saxaaya oo wanaajinaya oo qurxinaya oo waddadii saxda ahayd qofka u tilmaamaya meeshii uu ka bayri lahaa u sheegaya meeshii uu mari lahaa ee uu ku bayri lahaana u caddaynaya cilmigaa qofku haddii uu barashadiisa u soo jeesto khalaa'iqda ilaahay subxaana wa tacaala ayuu agtooda qiimo ku yeelanaya waayo ilaahay baa maamula dhammaantoodba cidduu ilaahay jeclaysiiya ayay jeclaanayaan cidda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku amro inay sharfaan ayay sharfayaan waxay weyneynayaan oo ay darajaynayaan cidda ilaahay subxaana wa tacaala uu u sheego inuu darajo leeyahay waayo dhammaantoodba ilaahay bay ka amar qaataan wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina allaha wamalaa'ikatahu ina allaha wamalaa'ikatahu xata annamlatu fii juxriha yusalluuna calaa mucallimi innaasi alkhayr ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo makhluuqaadka oo dhan ilaa laga soo gaadho quraanjada godkeeda ku jirta waxay u duceeyaan qofka cilmigii intuu bartay dadka sii baraaya waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay malaa'igta cidda samooyinka joogtay cidda dhulka joogta kalluunka badda ku jira inay ilaahay subxana wa tacaala dembi dhaaf ay u weydiiyaan qofka cilmiga barta ee dadkana sii baraaya ilaahay baa subxaana wa tacaala qiimihiisa u muujiyey dabeetana way u duceeyeen waayo khalaa'iqda xuquuqdoodu dadka baraya oo iyagu ay ka mid yihiin wax allaale iyo wixii xumaa ayuu dadka uga digayaa iyaga laftooda dhibaato ay ka soo gaari lahayd waxaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam u yimi saxaabigii la odhan jiray safwaan ibnu casaal wuxuu yihi yaa rasuula allahi ji'tuka taaliban lilcilm rasuulkii ilaah waan kuu imi anoo doonaya cilmi inaan kaa barto faqaala calayhi salaatu wasalaam marxaban bitaalib alcilm ninka doonaya cilmi inuu barto ha soo dhowaada buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ina almalaa'ika lataxufu biajnixatiha taalib alcilm malaa'igtu waxay ku hareereeyaan baalashooda qofka cilmiga dalbaaya ilaa ay iskorkoraan ilaa samada ridan wamaxabatan limaa yatlub waxay sidaa u samaynayaan waxay jecel yihiin oo raalli ay ku yihiin waxaanuu dalbaayo qofka cilmiga barta waa qof maray waddo barakaysan oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jecel yahay waa waddadii jannada waddada u toosan ee u dhow ee dhibaato adoon la kulmin jannada aad gaadhaysaa waa cilmiga inaad baratood ku hagaajiso kalkaaga oo qalbigaa iyo korkaaga intan muuqata hadalkaaga iyo camalkaaga iyo dhaqankaaga qaala nabiyu calayhi الsalaatu wasalaam man salaka طariiqan yaltamisu bihi cilma sahala allahu lahu طariiqan ila اljanna qofka maro wado la yimaado sabab iyo arin cilmigii nebi maxamed lagu soo dejiyey uu doonayo inuu ku barto ilaahay baa subxaana wa tacaala u fududeeya wadada jannada cilmiga laftiisa camal jannada lagu galo isla markaa acmaashii jannada lagu gelayeyna cilmigu qofka isagaa u tilmaamaya isaga ayaa tusaya isaga ayaa baraya isaga ayaa u sheegaya waxaa aad iyo aad wax looga murugooda ah in qofku uu noqdo qof adduunye un garanaya cilmigii qiimaha lahaana jahli kaga sugan ilaahay baa subxaana wa tacaala arrinta noocaasa sifo uga dhigay kuwa aan ilaahay rumaysnayn ee qalbigooda aanu iimaan ku jirin yaclamuuna daahira min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun muuqaal adduunyay garanayaan laakiin cilmigii aakhiro ee lagu badbaadayey waxba ka garan maayaan adduunyada lafteeda cilmigeedu
wuxuu u qaybsamaa muuqaalkeedu waa dhalaalkeedan iyo quruxdeedan iyo cuntadeedan iyo gurigeedan iyo gaadhigeedan iyo intan muuqmuuqata. wuxuu ilaahay tilmaamayaa kuwa kufaarta ah aragtiyoodu intaa inaanay dhaafsiisnayn. laakiin qofka muslimka ahi xataa cilmigan adduunye markuu barto aragtidiisu muuqaalka way dhaafsiisan tahay. wuxuu isweydiinayaa yaa abuuray shaygan oo jirsiiyey, muxuu tusinayaa ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala, xikmadda ilaahay abuurkiisa uu ka leeyahy waa maxay, allaha kuu abuuray, allaha ku baray, xaq intee leeg ayuu kugu leeyahay. hadduu barto caafimaad iyo dhakhtarnimo, makhluuqaadka ilaahay la yaab kale ayuu maalin walba arkaya amase uu maqlayaa, iimaan buu ka kororsanayaa iyo alla kacabsi iyo maalin walba inuu si joogtaa u qiro allaha subxaana wa tacaala waxaa abuuray awooddiisa. laakiin iyaga aragtidooda iyo aqoontoodu muuqaalkaasi adduunye ma dhaafsiisna, sirta iyo xikmadda ka dambaysana waruma hayaan. aniga iyo adiguba sifada ayaynaan yeelanin. kuwa muuqaalkan adduunye u yaqaana, ilaahay cilmigiisii aan haynin iyo waxyigii uu soo dejiyey, adduunyadan lafteedana aan u daliishan waxaa ka dambeeya ujeedooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyahay. wuxuu inoo sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ana allaha yubgidu kula caalimin bidunya jaahilin bilaakhira. ilaahay wuxuu nacaa u cadhoodaa mid kastoo adduunyadan aqoon u leh. wuxuu yaqaanaa sida dadka loo qalo, wuxuu yaqaanaa kombiyuutarada sida loo sameeyo ama loogu shaqeeyo, wuxuu yaqaanaa handasada iyo engineerinka sida wax loo dhiso, sida mishiin loo sameeyo, taasuu yaqaanaa. laakiin waa jaahilun bilaakhira. aakhiro wax allaaliya wax wara u hayaa ma jirto. hadduu doono waa muslim shahaadanaya, hadduu doono wuu tukadaa, laakiin salaadiisii buu khaldaya. haddana waxaa la leeyahay waa aqoon-yahan. muxuu aqoon-yahan ku yahay? waa muuqaalka adduunyo ilaahay subxaana wa tacaala aqoontiisa iyo cilmiga loo yeesho uu tilmaamay sifa ay leeyihiin dadkaasi aan wanaagsanayn. aqoonta dhabta ahi waa ta ilaahay ku baraysa subxaanahu wa tacaala. aqoonta dhabta ahi waa ta kuu xambaarinaysa hamul aakhira. aqoonta dhabta waa ta aad ku fahmayso xaqiiqada adduunyadan iyo ujeeddada loo jirsiiyey. waa taad ku garanayso inay tahay macbar iyo birish laga tallaabayo. waa taad ku garanayso inay tahay adduunyadani kaalin laga shidaal qaadanayo. waa ta ku baraysa in loo socdo daartan daaraan ahayn, safar lagu jiro, safarkaasi inuu dheer yahay, sahay inuu u baahan yahay. waa ta ku baraysa xaqiiqada adduunyada ee xaqirana hoosaysa iyo xaqiiqada aakhiro oo ah mid sarraysa. oo ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi bal tu'thiruuna alxayaata addunya waalaakhiratu khayru wa abqaa. waxaa cilmiga qiimo ugu filan inuu aakhirada ku baraayo. ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay nolol adduunyaa door bidaysaan, aakhira ka wanaagsan iyadaana baaqiya. adduunya wax kasta oo yaallaba way baaba'aysaa, way suulaysaa. qof walibana intii ilaahay uga qoray kana yaraysan maayo, kana badsan maayo. ilaahay baana subxaana wa tacaala u kafaalo qaaday qofku adduunyadanba isagoo aan iman, laakiin ta qofka loo diray ay tahay inuu ka shaqeeyo, aqoonteedana uu yeesho, waa addaaru alaakhira. sida aayaadka qur-aanka ahi ay tilmaamayaan wama alxayaatu اdunya fi alaakhirati ilaa mataacun qaliil. qofka cilmigan barta wuxuu noqonayaa qof dadka kale ka sarreeya. nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka caalimka ahi wuxuu ka dhigan yahay marka laga xagga darajada iyo qiimaha, yacnaa wuxuu dheer yahay qofka aan aqoonta aan lahayn, fadliga aan dheerahay anigu ka idinku hooseeya. waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofka cilmigan bartaa inuu dheer yahay dadka kale, fadliga dayixu uu dheer yahay xidigaha. dayixu iftiin buu leeyahy, iftiinkii isaga kuma koobna uu dhaafa, dadka kale ayaa ku iftiinsada oo waa lagu intifaaca. xidigahana iftiinkoodu iyaga ayuu ku kooban yahay. cilmigan barashadiisu waxay u baahan tahay inay qofka niyadiisa ka soo godo, fadligiisa iyo wanaaggiisana inuu ku qanco, inuu ogaadana adduunyadiisa xataa wuxuu ku kordhiye mooyaane wuxuu ka dhimayaa haba yaraatee inaanay jirin. ilaahay baa adduunyada ugu barakaynaya, wakhtigiisa wax ka mid a hadduu ku bixiyo cilmigan barashadiisa. cilmigan barashadiisa waxay u baahan tahay go-aan, waxay u baahan tahay sabir, waxay u baahan tahay mucallim inaad u yeelato, waxay u baahan tahay himma caaliya, hansare inaad u yeelato cilmigan barashadiisa. markaas ayaad wax ka xaqiijin kartaa oo wax ka mida aad gaari kartaa. aynu isweydiinno waxyigii nebi maxamed ilaahay uu ku soo dejiyey, qof walba isweydiin maxaad ka taqaanaa? qur'aanka musxafka ma ka akhrin taqaan? intee in leeg ayaad qaybsan tahay? axaadiidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka waran. cilmigii fardulcaynka kugu ahaa
ee cibaadaadka habeen iyo maalin kasta lagaa rabaa ay kaaga xidhnaayeen inteebaad ka taqaanaa waxa aad ka shaqayso haddaad ganacsado tahay haddaad caafimaad ka shaqayso laa shaka inuu jiro axkaam iyo aadaab iyo xuquuq cilmiga sharciga uu ka warramayo intee ayaad ka og tahay mise sida ay kula muuqato ayuunbaad arrimahaasi u maamushaa haddaad tahay qof siyaasiya oo dadka u taliya ama doonaya inuu u taliyaba cilmigaa ahayd ummadda inaad ku hogaamiso intee ayaad ka taqaanaa haddaad tahay arday jaamacad dhigta oo dhigta waxa weeyaan dhaqaalaha barta ama kombiyuutarada iyo culumtooda barta ama caafimaadka barta taasi waa muuqaaladii adduunyo laakiin cilmigii lagu diray ee qiimahaagu uu ku soo baxayey ilaahay agtiisana darajo aad kaga yeelanaysay tan adduunyo lafteedu ay ku saxmaysay quruxdeedii iyo qiimaheedii iyo nafcigeedu uu ku imanayey intee ayaad ka haysaa waxaan leeyahay adig iyo aniga iyo dhammaanteenba aynu u jihaysanno goobaha lagu barto cilmiga maalin walbana cilmi aynu kororsanno si aynu ilaahay subxaana watacaala ula kulanno laynoo horgeeyo inagoo dalabatu cilmi ah qofka ilaahay khayr la doonaa waa qofka ilaahay u fududeeyo barashada cilmiga qalbigiisana u jeediyo qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahamsiiyaa xadiidka waxaa laga fahmayaa qofka aan diintan waxba aan ka baran waxba aan ka fahmin waa qof ciqaaban ilaahayna subxaana watacaala khayr aanu la doonin kuwa ayaynaan ka mid noqonin aynu ka mid noqonno kuwa iyagoo dhakhaatiira injineera ah jaamacada dhigta howlo kaloo adduunyahaya shirkada leh amase ka shaqeeyaba haddana ku xidhan masaajidada duruusta iyo khayrka ka socda iyo darka wanaagsanee saafigaana ka caba ilaahay hayna waafajiyo wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره